السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين صاحبتي قاليقا كسو دوادا مركلة iyo cilmi tag صاحبتي قاليقا maanta waxaan doonayaa inaan la wadaago arrin ku saabsan BS 2021ka BS-ka si official waxay u sheegeen in leeyaasha ka imaadeen AC Milan iyo Inter Milan laga saari doono BS 2021 kaas oo update-kiisu oo imaan doono August wixii ka dambeeya marka si official waxay u sheegeen in laga saari doono Inter Milan iyo AC Milan leeyaasha ka yimaadeen leeyaashaasna waxa kamid ah kuwan ku muuqda oo Recopa iyo Adriano iyo ragaas oo dhan waa laga saaraa laakiin waxaan laga saari doonin Paul Maldini ma laga saari doono ninkaas si gaar ah oo heshiis ula galay BS-ka midda kale ee muhiimka ah ee aan doonayo in aan kula socodsiino waxa weeyaan haddii ay ku joogaan leetiyaal oo ka imaadeen Inter Milan ama AC Milan in markii BS 2020 uu isku bedelo BS 21 lagu bedeli doono leetiyaal kale oo isla position iyo ball colorka isla ah haddii uu ku joogay Adriano oo striker waxa lagu bedeli doonaa example Torres oo kale adiga laacib oo ka ciyaara isla position oo legend ah lagu sii doonaa haddii laacib lambar 10 ah oo ku joogay oo Inter Milan ay ka imaado ka baxo laga yaabay in Ronaldinho lagu bedelo nasiibkaaga ayay ku xiran tahay laakiin haddii legend Inter Milan oo ku jooga ama AC Milan ah oo listigan hadda ku muuqda kamid ah waxa lagu bedeli doonaa legend kale oo booska oo ka dheelo asna ka dheela oo iskuna color ay yihiin waad mahadsantihiin saaxiibada qaaliga adinka ayaan wax idinku ahay oo subscribe-tiina iyo like-tiina iyo comment-tiina ayaan ku joogaa halkan waad mahadsantihiin aad iyo aad ayaan idinkuga hambalyeynaya isma dhaafno